السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي قيمة بدن مانتي مقال عصب مقال كأن مانتو حين كو قادنينا 10 كينا سدحات ويندو 11 كا 10 كي 10 كا كوري waxaan ku soo qaadanay sida loo qariyo ama loo soo bandhigo dhammaan standard icons-ka ama apps-ka ku saaran desktop-ka ama shaashada waxa ku saaran oo dhan sida loo qariyo ama loo soo bandhigo ayaan ku soo qaadanay 10 keena saddexaad maanta marka waxaynu ku qaadanaynaa haddii eebweyne raalli ka noqdo sida waa maarata standard iconska aan dhehe waa maarata desktop iconska waxa shaashada saaran oo dhan sida loo weyneeyo loo yareeyo dhexdhexaad looga dhigo ayaan qaadanaynaa way badan yihiin shortcutiyana way leeyihiin okay maxaan sameynaynaa marka shaashada ayaa meel bannaan ka imaanaynaa kadibna waxaan leenahay right click oo midigta ayaan taabanaynaa midigta markii aan taabano waxay noo soo baxayso daaqadan dheerka badan noo soo baxayso kadib waxaan ku dhufanaynaa halka ay nooga qoran tahay view markii aan ku dhufano waxay noo soo baxayso qaybtan kore aan fiirino marka fiiri large icons medium icons iyo sidoo kale small icons saddexda ayaa inoo soo baxayso saddexda mid kamid ayaan dooranayna marka tusaale haddaan u baahanahay large icons oo ah inaan waaweyn ka dhigno waa maarata large aan dooranayna okay intaan way ka weynaanayaan fiiri marka hadda shaashadu way ku muuqataa oo maarata sida hadda way ka waaweyn yihiin okay sidoo kale mar kale right click ayaan leenahay view ayaan ku laabanaynaa kadibna mediumkiisaan ku celinayna hadday waxay noo ahayd medium dhexdhexaad okay mediumkana shortcut uu leeyahay oo ah control plus shift plus 3 okay largegana wuxuu leeyahay control plus shift plus 2 smallkana wuxuu leeyahay control plus shift plus 4 okay waan arki doonaa shortcutida soo laabanaynaa hal mar mediumka aan ku tijaabino mediumka waa keen waa sidii marka hore uu inoo ahaa waa mediumka okay mar kale small aan ka dhigno right click intaan way kasii yaraanaya marka right click view ayaan ku laabanayna kadibna waxaan leenahay small icons intii hore way kasii yaryihiin okay waxaa jirta marka saddexdan oo keliya kuma eka waxaa jirta extra large details styles content way tira badan yihiin okay intaas marka waxaan ku sameynaynaa shortcut yaan ku sameynaynaa tusaale shortcutka maxaa loola jeedaa in laba xaraf iyo ka badan lasla taabto tusaale waxaan isla taabanaynaa ama isla qabanaynaa keyboardka control iyo shift iyo 1 aan isla taabanaynaa extra large fiiri hadda waxaan soo kicinaynaa on screen keyboard aan soo kicinaynaa fiiri control iyo shift iyo ina meesha ka tusaa raba okay keyboardkayga waa kan keyboardka marka sana uu soo kiciyo waxaa isla taabana control ereygan shifty oo kan ah iyo waxaa isla taabana hal saddexdaas haddii aan isla taabto micnaheedu waxaa waaye extra large waay weynaantii hadday aan arkaynay way kasii weynta extra large 2 anagoo control iyo shiftiga aan hayna mar kale waxaan taabanaynaa 2 waa large 3 aan taabanaynaa medium 4 aan taabanaynaa small ilaa iyo 8 aan ku wadaynaa shortcutyada ilaa iyo 8 control iyo shift aan taabanaynaa kadibna 1 2 3 4 ilaa iyo 8 aan taabanayna waan arkaynaa waa maarata sida ay noqonayaan waxa ugu muhiimsan waxa waaye waa maarata afarta ama shanta hore waa inaan aragno saddexdan waan soo aragnay anagoo isticmaalayna right click laakiin markaan waxaan isticmaalaynaa shortcut ayaan isticmaalaynaa okay aan iska xiro keyboardkan waxaan leeyahay marka control iyo shift ayaan hayaa hadda wana taabana fiiri control iyo shift marka aan taabtay iyo 1 marka aan taabtay fiiri abiska qaara xitaa qarsamay mujida weyni inta ay la eg yihiin mar kale control shift iyo 2 aan leeyahay large caadi ah mujida mar kale control shift iyo 3 taabana fiiri wuxuu ku soo laabtay medium control shift iyo 4 taabana small control shift iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo inta kuma dareemayno ilaa iyo 8 kuma dareemayno sababtoo ah mar wuxuu ka dhigaa taxano ka dhigaa mar waa maarata wuxuu ka dhigaa qaybtaas gudahan ku dhex dareemi karnaa fiiri hadda on bc aan soo galno gudahan aan imaano tusaale desktopka laftiisa hadda gudahan u imaano fiiri waa kan mar kale hadda fiiri hadda inta ku tijaabinayna control iyo shift iyo 5 aan ka wadno fiiri 5 markii aan dhahno qaabkan uu ka dhigaa macnaha taxanahan nidaamkan uu ka dhigaa mar kale control shift iyo 6 aan dhahno waa kan muxuu sameeyey details loo yaqaan nidaamkan fiiri xogtu soo bandhigay taariikh software waliba ama app waliba taariikhda lagu shubay nooca uu yahay cabirkiisa okay mar kale control iyo shift iyo 7 aan dhahno waa kan mujida
control shift 7 nidaamkan ayuu ka dhigay mar kale control shift iyo 8 oo meesha ugu dambaysa aan ka dhigno okay waa kan isagana mujida marka abiska ama softwarada nidaamkan waa maaragtay shortcutyada marka dheeraadkan ay leeyihiin tusaale waa maaragtay kuwa gudaha ah waa banaanka kale ugu ka yeela 1 2 3 ilaa 4 ugu ka yeela laakiin 5 6 7 8 afarta kale waa maaragtay gudaha computerka tusaale shaashadoo kale in nidaamkan loo soo bandhigo kale iyo uma sameysna marka waa kan marka qaabkan ayaa loo sameeyay hadda haddii aan u baahanay extra large inaan ka dhigno control iyo shift iyo 1 isla taabanayna fiiri زائد وابي sidoo kale waxa isticmaali kartaa gudaha marka joogtid right click view waa isticmaali kartaa fiiri view marka aan tagno fiiri marka hore banaanka waxay noo soo bandhigayso kaliya large medium iyo small hadda laakiin fiiri extra large icons medium mid waliba shortcut kiisa halkan ku wata mujida control plus shift plus 1 control plus shift plus 2 control plus shift plus 3 control plus shift plus 4 control plus shift plus 5 control plus shift plus 6 control plus shift plus 7 control plus shift plus 8 ilaa iyo 8 nidaam ay leeyihiin mid waliba qaabku noqonayna halkan ayuu sawir ahaan kaaga muujiyay mujida large iconska waa marta extra large waa nidaamka hadaba joogna large icons waa kan marka la right click view aan ku celino waa marta medium icons aan ka dhigno fiiri nidaamkan waa marka la right click kadibna view aan ku celino small icons fiiri marka la right click view dhammaan adigu sidaas aad tijaabin kartaa dhammaan sidaas ayaa u tijaabin kartaa waa kuwan casharkeena saddexaad halka ayuu inooga egyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like-ta nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka